waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhawaada cilmi waare media channelka. waxaan idinka codsanaynaa asxaabta haddii aad muuqaalkan ka hesho subscribe-ta, like-ta, share-ta iyo commentiga. aada umahadsantihiin la socodkiina waa idinka mahad celinayaa sidaad u joogtaysaan daawashada channelka cilmi waare media. maalmahanba sida aad la socoteenba waxaan warbixino kooban idinka siinayay cudurka coronaviruska oo kusii faafaya gobolada dalka Mareykanka. madaxweynaha dalka Donald J. Trump ayaa galab kasta waxa uu qabtaa isaga iyo guddiga loo xil saaray arrimaha la socodka cudurka coronaviruska. warbixino ku aadan waxyaabihii ugu dambeeyay ee kasoo kordhay cudurka coronaviruska iyo faafitaankiisa. madaxweynaha ayaa shirkiisa jaraa'id daqiiqada ka hor waxa uu ku sheegay in dalku uu sameeyey tijaabooyin gaaraya ilaa iyo 1 milyan oo qof laga tijaabiyey cudurka coronaviruska. waxaana taasi ay ka dhigan tahay in si xooli ay ku soconto tijaabinta cudurka coronaviruska ee dadka shacabka laga tijaabinayo. ilaa iyo hadda dadka ku geeriyooday maanta oo keliya 500 ayay kor u dhaafaysaa ayaa la leeyahay, taasi oo ah tiro aad u fara badan marka la eego maalmihii lasoo dhaafay oo tirooyinkii u geeriyoonayay. dhimashadu hadda guud ahaan waddanka 3,000 oo qof ayay qarka u saaran tahay. waxaana la leeyahay ilaa iyo 15 abriil labada toddobaad ee soo socota waxay noqon doontaa labada toddobaad ee ugu dhimashada badan iyo faafitaanka cudurka. gobolada qaar ayaa hadda si xooliya ugu sii faafaya, waxaana ka mid ah gobolka Illinois oo la sheegay in ilaa hadda 5,000 oo case laga helay. Louisiana ayaa sidoo kale ka mid ah iyo Florida gobolada ilaa hadda sida xooliga loogu soo sheegay in cudurka ugu sii faafayo. madaxweynaha waxa uu sheegay in uu la xiriiray gobernatorayaasha gobolada dhammaantood. inta badan gobolada uu sida adkaa u saameeyay waxayna ka cabanayaan shaqaalihii caafimaadka ay ku yaryihiin qalabka PPE-da loo yaqaano oo personal protective equipment-ga oo sida gloveska, maskiga wejiga la gashto iyo qalabka ay xirtaan kalkaalisooyinka iyo weliba dhakhaatiirta. waxaana uu sheegay in ilaa iyo 10 company ay hadda ku howlan yihiin samaynta ventilatorska oo qalabka ah dadka marka neefsiga uu dhibayo lagu xiro si ay ugu neefsadaan. waxaana uu sheegay in 10,000 ay ilaa hadda diyaar yihiin gobolka New York oo gobolka ugu badan oo cudurkan uu saameeyayna ay u direen qalabka ventilatorska, isla markaana hadda ay kuwa kale ay u dirayaan. maanta New York waxaa gaaray markabkii madaxweynaha uu u diray 2 maalin ka hor, isagoo halkaas kusoo xirtay ilaa iyo 1,000 sariirood ayuu leeyahay. waxaana qayb ay ka geysan doontaa sidii culayska faraha badan ee isbitaalada New York haysta uu uga qafiifin lahaa. midka lamida Los Angeles ayaa loo diray. New York oo keliya ayaa waxa ay dhimashadu maraysaa in ka badan 1,200 oo qof. 66,000 waa uu soo ritay ilaa iyo hadda cudurka. waxaana gobernatoraha gobolka New York uu mayorka New York Bill de Blasio uu ka codsanaya shaqaalaha kale ee caafimaadka ee gobolada kale inay u soo gurmadaan oo xitaa ka baryay uu yiri waad baryeena naga soo gaara xaaladdu meel xun bay naga maraysaa. sidoo kale gobolada Soomaalidu ay degan tahay haddaan warbixin kooban idinka siiyo gobolka Soomaalidu ay ku badan tahay Minnesota ilaa hadda 10 dhimasho ayaa laga soo sheegayaa. dad ku dhawaada ilaa iyo 500 ilaa hadda cudurku waa uu soo ritay. gobolka aan joogo Indiana gaar ahaan Marion County halka aan ku noolahay Soomaaliduna ay ku badan tahay. kiisaskii ugu badnaa Indiana ayaa laga helay in ka badan 600 ku dhawaad 700 oo kiis ayaa laga helay. guud ahaan Indiana dadka laga helay waxa ay gaaraysaa ilaa iyo 1,700 waxaana ku geeriyooday ilaa iyo hadda 39 qof, halka Ohio-na dadka laga helay 1,900 ay kor u dhaafeen, isla markaana 39 qof ay ku geeriyooday. Indiana waxa ku geeriyootay iraade 34 qof. marka waxaa muuqanaysa in cudurku uu si xooli ah ku sii kordhayo, isla markaana madaxweynuhu waxa uu sheegay inay dardar gelin doonaan tijaabada laga qaadayo dadka. dhakhaatiirta iyo xildhibaanayaasha caafimaadku waxay ka digayaan labada toddobaad ee soo socota ilaa 15 abriil laga gaarayo inay noqon doonto labada toddobaad ee ugu daran oo cudurku si xooliya ku sii faafi doono, isla markaana dhimashada ugu badani ay dhici doonto. jaamacadda caafimaadka ee Washington waxay ka digaysaa in marka la gaaro ilaa iyo 15 ilaa iyo 15 abriil ay dhimashadu gaari karto ilaa iyo 2,270 qof oo ay u geeriyoon karaan cudurkan. waxaana xildhibaanayaasha caafimaadku ay sheegayaan ilaa iyo June 9 in dhimashadu ay isku celcelis ahaan ay gaari karto maalin kasta 100 qof, taasi oo ah khatar xoogan oo iyaduna halkaasi ka muuqata. goboladu weli waxay ku jiraan amarkii guriga joog. gobernatoraha gobolka Virginia ayaa 70 maalmood
dadka ku amray gobolkaasi inay joogaan ilaa iyo 10 Juun taasi oo madaxweynaha mar wax laga weydiiyana uu sheegay in gobernatore kasta uu awood u leeyahay gobolkiisa isla markaana wada tashiyo ay dowladda dhexe iyaguna ay ka geliyaan marka ay amaradaasi soo rogayaan madaxweynuhu shalay waxa uu sheegay in guri amarka ah gurigaaga joog uu ilaa iyo 30 bisha sii jiri doono laakiin lama oga in la sii kordhin doono iyo in kale ilaa ay haddana dadweynaha ku dhaqan dalka Mareykanka waxay ay boqolkiiba 90 ay joogaan guryahooda shaqalaanta ayaa la sheegay sidoo kale inay cirka isku shareertay mar kale oo ilaa iyo 47 milyan oo qof ay shaqo la'aan yihiin isla markaana ilaa iyo 130,000 oo qof oo wadanka ku dhaqan aysan wax paycheck aysan helin todobaadyadii u dambeeyay lacagihii dowladda ay u qoondeysay oo 2.2 trilyan ahaa in dadka la soo gaarsiiyay ganacsiyada yaryarka ah waxa wasiirka ganacsiga Stephen Mnuchin uu sheegay in maanta oo Isniina la bilaabay in ganacsiyada yaryar lacagahoodii la gaarsiiyo halka sidoo kalena dadweynaha shacabka ah ay soo gaari doonto 2 ilaa iyo 3 toddobaad ee soo socota waxaana dowladdu ay sheegtay inay sii labalaabayso dadaalkeeda ah sidii loo xakameyn lahaa cudurkan iyadoo ay muuqato in si xooliya ugu sii faafayo gobolada kala duwan ee dalka Mareykanka wixii faahfaahin ah ee ka soo kordha caabuqan ama cudurkan coronavirus si xooliya ugu sii faafayo guud ahaanba wadanka Mareykanka waan idin soo gudbin doonaa oo ku mahadsantihiin daawashada mar labaad iyo mar saddexaad waan idinka mahad celinayaa wixii warar ah ka soo kordhana waxaad kala socon kartaan cilmi waare media waxaan idinka codsanaynaa in aad subscribe-ta like-ta share-ta iyo comment-gaba aad noogu dadaashaan intaan mar kale iyo video cusub aan isugu imaan doono waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin asxaabta